بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Tooreysa Naciima. waxaan rabaa inaan ka hadlo dhalmo la'aanta ragga. ciwaankeenu wuxuu noqon doonaa dhalmo la'aanta ragga. dhalmo la'aanta ragga waxaa la dhihi karaa qofka ragga ahi markii labada qof lamaanaha ay is aroosaan ilaa hal sano ayagoo isticmaaleen wax ka hortaga ee looga hortago dhalmada ayagoo si joogta u joogo ilaa hal sano. haddii labada lamaane isqaba ay ilaa hal sano ay joogaan ayagoo wax ka hortaga isticmaalin misna si joogta iskula joogo markay dhali waayaan hal sano iyo wixii ka badan ayaa waxaa la dhahaa dhalmo la'aan. markaasaa waxaa la dhihi karaa qofkan waxba ma dhalaayo ama dhalmo la'aan markaasaa lagu magacaabi karaa hal sano iyo wixii ka badan ayadoo wax protection ama ka hortaga aanan la isticmaalin. waa kala qaadeynaa da'daan kala qaadeynaa. haddii ninka ragga ahi uu jiro 45 badanaa dhalmo la'aanta hal sano way dhaafi kartaa. waayo markuu ninku 45 sano wixii ka badan uu jiro mar walba isbeermadii decrease ku imaanayo hoos u dhacaysa. sidaas daraadeed waxaa laga yaabaa inay hal sano la dhaafto 2 sano gaarto. haddii laakiin ninka uu nin dhalinyaro yahay oo 25 sano jiro gabadhiina ay ku jirto xilligii dhalmada waxay iska noqonaysaa si caadiya oo ilaa 4 bil gabadha haddii markii oo la guursado ilaa 4 bil uurka way yeelan kartaa. laakiin hadduu qofka age yahay ha degdegin ha dhihin maxaa wax loo dhali waayo waayo qofka age markii agekaas 45 sano dhaafo degrees imaanayo. sidaas daraadeed hore uur lagama yeelanayo. marka dhalmo la'aanta ragga saasa u kala qaadeena qofka markuu hal sano wixii ka badan uur yeelo waayo ayaa la dhahaa dhalmo la'aan waaye. waxaan rabnaa inaan u gudubno calaamadaha lagu garto qofka dhalmo la'aanta. calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah qofka inuu rabitaankiisa yaraado oo xilliga galmada la sameynayo rabitaankiisa yaraado, in dareenkiisa oo kacsiga uu yaraado, asagana in xanuun uu dareemo oo qooraha uu ka dareemo ayadana calaamadaha qofka lagu gartay kamid tahay. sidoo kale calaamadaha qofka lagu garto waxaa kamid ah in xubinta taranka ay soo yara bararto barar lagu arko oo xilligaas imaado ayadana waxay kamid tahay calaamadaha lagu garto dhalmo la'aanta ragga. sidoo kale in naasaha soo weynaadaan ninkii ragga ahay oo naasaha soo bararayo lagu arko ayadana waxay kamid tahay dhalmo la'aanta ragga ee qayb ka qaadataa. sidoo kale ninka waxaa naqaanaa in timo iyo xaad badan iyo uu leeyahay, in timihiisii sii yaraanayaan ha ahaado tii madaxa ha ahaado kii gacmaha iyo jirka ku yaala ha ahaado inay sii yaraanayaan ayadana waxay kamid tahay calaamadaha lagu garto ragga markay dhalmo la'aanta jirto. marka calaamadahaas hadaa aragtid automatically waxaa ogaanaysaa ninkan inuu stagekii oo dhalmo la'aanta uu ku socdo. isla markaas dhakhtarka wuxuu ku qasban yahay inuu baaris oo u dirsado oo waxyaabihii uu markaas isleeyahay wuu qabaa ninkan. haddii aan u galno maxaa ka hoosgareeyo dhalmo la'aanta. horta dhalmo la'aanta waxyaabo badanaa ka hoosgareeyo. kow number 1 waxaa ka varicocele waxa la dhaho. varicocele waa kala qaadeynaa dhalmo la'aanta waxyaabaha ka hoosgareeyo, waxyaabo cudur ahaan u ka hoosgareeyo iyo waxyaabo waxaan u kala qaadeynaa deegaan ahaan u ka hoosgareeyo iyo waxyaabo life style-ka ama qofka noloshiisa asaga waxyaabo uu keensaday oo ka hoosgareeyo. haddii aan u tagno waxyaabaha cudur ahaan u ka hoosgareeyo waxaa kamid ah varicocele waxa la dhaho. varicocele waa markii tubada ay xirmato tubada soo qaada shahwada ee gasho testiga markay xirmato ayaa waxaa la dhahaa varicocele ama ay samaysato xiran meel ay isku xirmato markaas shahwadii ay soo bixi weyso varicocele la dhahaa. marka varicocele hadduu ku dhaco ninkan ragga shahwadii maxay ahayd tayadeedii way yaraanaysaa. marka waxaa imaanaysa inuu wax dhali waayo. varicoceleka daawadiisa qalliin waaye. haddii aan u gudubno waxaa kaloo jiro infection hadduu jiro infectionkii haddii aanan la daaweynin badanaa infectionka imaado waa kan xilliga galmada imaado oo gabadhii rag ninka markay isku galmoodaan imaado. marka varicocelekaas hadduu jiro infectionkaas hadduu jiro waxaa imaanayso infectionka haddii uu sii socdo oo aan la daaweynin inuu tubadii xiro blockage samaysto.
sidaas daraadeed oo ninkii dhalmo la-aan ay ugu dhacdo ayadana way keeni kartaa. Sidoo kaleeto waxaa keeni karo waxa in uu maxay ahaytoy undescending testicle waxa la dhaho in ninka labadiisa qooro aysan hoos usoo degin. physical ahaan loo arki karaa muuqaal ahaan marka qofka la fiisiteeyo labadiisa qooro mid ay kor jirto, maadaama qooraha aan aqaano in meesha kiishka ay soo galaan ee banaanka laga arko. haddii ay kor jirto oo qaybta kore ay jirto oo midna ay soo degantahay midna ay kor jirto, ayadana waxay keeni kartaa dhalmo la-aan ee ragga ay qeyb weyn ka qaadataa. sidoo kaleeta ejaculation issue waxa la jiro oo xagga oo galmada problem inuu ku jiro, retrograde ejaculation waxa la dhaho in ninka markuu ejaculation ama kacsi sameeyo in meeshii biyihii ay xubinta taranka soo raaci lahaayeen inay xagga balaadarka ama kaada heesta ay aadaan, markaas isbeermo ku filan ay soo bixi weyso amaba isbeermo aysan soo bixin. marka xaaladaas ayadana waxay keeni kartaa dhalmo la-aan, maadaama isbeermo oo ku filan oo tayadeeda sareyso aysan soo bixi karin, waxay keeni kartaa in dhalmo la-aan ay dhacdo. sidoo kaleeto waxaa kamid ah qofka hadduu medication ama daawooyin isticmaalo oo yareeyo maxay ahayto isbeermada dilo. haddii qofka oo isbeermada daawooyin dilo isticmaalo sida Soomaali waa naqaanaa antibeenada aad u isticmaalaan. antibeniska hadda aad u isticmaashid kaniini kool taabka la dhaho kuwa la dhaho allergiga looga hortagaa, waxyaabahaas oo idil haddii aad u isticmaashid ayadana waxay keenaysaa in isbeermadaadii ay quality-geedii ay hoos ay u noqoto. sidoo kaleeto waxaa keeni karo dhalmo la-aanta in tubadii ay xirmato, tubadii defect oo imaado. defect hadduu imaado tubadii ay xirmato, ama tubadii ha ahaato tii oo kaada heesta ha ahaato ama tii oo shahwada qaadiisa ha ahaato testicle-kii haddii ay xirmato ayadana waxaa imaanayso in qofkan dhalmo la-aan ku dhacdo. marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in ninka dhalmo la-aan ku dhacdo. marka haddii oo qofka oo calaamadahaas badanaa ma arko, dhakhtarka uunbaa arki karo. markii dhakhtarka arko asaga go-aan qaadanayo qofkan sida loo manage gareynayo. waxaa kaloo jirto chromosomal abnormality waxa la dhaho in chromosoomka xaggiisa problem ka jiro, sidaas aan naqaano ama ognahay x iyo y oo ninka leeyahay. x iyo y haddii ninkii marka uu soo daayo laba x, maadaama x y oo laha hadduu laba x soo daayo waxaa imaanaysa ninkii inuu nin dumar camala noqdo, kabacdii dhalmo la-aan ay dhacdo. ayadana chromosomal abnormality-ga badanaa lama daaweyn karo, wax oo loo dhasho waaye, ayadana way dhacdaa badanaa. marka calaamad waxyaabaha koosgareeyo waxay ku xiran tahay daaweyntooda. haddana hadba wixii markaas koosgareeyo, hadday infection tahay, hadday varicocele tahay, intaas soo sheegna kamid tahay. haddii aan u tagno cudurkan maxaa looga hortegi karaa anagoo soo koobeyno. cudurkan waxaa looga hortegi karaa in qofka uu iska dhaafo smokinka, maadaama life styleka ay kamid tahay oo qof keeni karo in smokinka uu iska dhaafo, sikareedka iyo alcoholka iyo waxaas lamidka. sidoo kale adiboska wuu koosgareyn karaa, ama qofka inuu cayilan yahay ayadana in ninka raggaahi oo cayilka uu iska yareeyo. badanaa saan naqaano Soomaalida nimankeedu iska cayilan yihiin, calool ay leeyihiin, marka badanaa waxay ka dacwoonayaan dhalmo la-aanta, waxaana keenayo calooshaasaa keenayso. ninkii markuu caloosha uu leeyahay waxaa laga yaabaa inuusan sidii loogu talagalay wax ugu tegi karin, kabacdiina ay keento dhalmo la-aan ay keento. sidoo kaleeto waxaa kaleeto looga hortegi karaa labada qof lamaanaha inay galmada si joogtaa u sameeyaan. si joogtaa u sameeyaan markaa dhaa ma ka wada habeen kasteeta in la sameeyo, micnaha xilli waxaa jiro oo ovulation time-ka gabadha markay menstruation ka qubaysato maalinta 8aad ilaa 14 18 19 maalmahaas in la sii wada aada u sii fiican. Soomaalida waxay iska aaminsan yihiin qofka markii galmo badan oo maalintii dhowr mar la sameeyo in uur lagu qaadanayo. saas maahan. after 3 days waa iska sameyn kartaa, normal waayo isbeermada ayada marka qofka galmada uu sameeyo 5 days jirka uu ku jiri kartaa. haddii xataa aan galmo la sameyn 5 days jirkaada ku noolaan kartaa. marka wax oo Soomaali sidoo kaleeto in stresskii la yareeyo. stresska hadduu yaraado
stresska wuxuu dilaa isbeermada ama maxay toy bini-aadanka immuunkiisuu dilaa. immuunkii hadduu dilana isboormadii naftirkeeda immuunay leedahay way yaraanaysaa, tayadeedaa yaraanayso. sidoo kaleeto ninka ragga waxaa laga rabaa inuu kuleelka ka ilaaliyo qooraha. kuleelka sida laptopka oo kaleeto, soomaali laptopka aada u isticmaashaa la saaraa. shaqadaadoo kaleeto haddaa gaari wadkaada uu badan yahay, gaariga waa iska naqaanaa matoorkiisa kuleel uu keenaa, bajaajka oo kale, waxyaabahaas oo kale inaa kuleelka aa iska ilaalisaa la rabaa. kuleelkaas haddaa iska ilaalisid isbeermadaada caadiya noqonay. laakiin isbeermada maadaama ee meel kiisha ku jirto la keydiyo, haddii temperature oo ka badan midkii loogu talagalay ay dareento, waxay noqonaysaa isbeerma aanan jirin oo ibra. marka preventionka intaasaa kusoo goobaya. tala ahaan waxaan u siinayaa qofka inuu sameeyo galmada si joogtaa. galmada in si joogtaa loo sameeyo. maxay ahayd maalinta gabadha caadada ay ka qubaysato, maalinta caadada ay ku dhacdo, maalinta 8aada laga tirsanaa. maalinta 8aad wixii ka dambeeyay 10aad, 11aad, 14aad ilaa 19aad in xiliyadaas la sameeyo si joogto ah loo sameeyo. xiliyada kale muhiim maaha in joogto loo sameeyo, xiliyadaasa ugu muhiimsan in gabadha iyo ninkeedii ay diyaar ahaadaan, ay iska warqabaan. xiliyadaas ayaa ugu muhiimsan in galmada la sameeyo. sidoo kaleeta in xilligaas maadaama ilmo la raadinayo, waxyaabaha lubricationka aana la isticmaalin, kareemaadka oo dadka qaar iska isticmaalaan, oo ama ha ahaado kuwan jeelka oo kaleeta xanuunka baabi'iyaa la dhahayo, ama kuwan kale ragga isticmaalaan si daawooyinka oo dhahaan dareenkuu zaa-idiya iyo xubno weynayaa iyo wax saas lamida. wuxuu rabaa ahaada inaadan isticmaalin waxaasoo idil isbeermadii dilaan. si isbeermadiiyo nadiifa ay minkii u dhex tagto, oo inaadan isticmaalin wax oo lubrication ama kareemaada waxyaabahan qoyo xubinta taranka qoyaanka u sameeyo inaadan isticmaalin. ayadana muhiim waa. sidoo kale exerciseka muhiim ay u tahay, qofka waa kala talinaya. iyo inuu qofka markii calaamadahan aan soo sheegnay ama cudurkan iskaga arko, ama 1 sano wixii ka badan uu iska dareemo inaysan dhalmo la-aan jirin, inuu dhakhtar u tago professionkeeda leh oo tala ahaan dhakhtar ugu tago. intaasaa kusoo gabagabeynaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.